shalay waxaa Jowhar yimi wafdi horkacay wasiirka waxbarashada xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Goodax Barre kaas oo ujeedka socdaalkiisa uu ahaa sidii uu kulamo ula qaadan lahaa madaxda sare ee Hirshabeelle bahda waxbarashada iyo ardadii Jowhar ku galay imtixaankii mideysnaa ee ay qaadaysay dowladda Soomaaliya ee wasiirku baabi'iyay kadib markii la helay cadeymo muujinaya inuu banaanka u baxay imtixaanka isla markaana lagu wareejinayay baraha bulshada ay ku xiriidho sharar saacado badan qaatay oo wasiirku la yeeshay madaxda sare ayaa isfaham buuxa laga gaaray waxaana madaxda sare ee Hirshabeelle lagu qanciyay in imtixaankii la baabi'iyay laga gudbo loona diyaar garoobo imtixaanka kale ee wasaaraddu ay ku dhawaaqday in 27 bishan May la qaadayo inkasta oo madaxweynaha Hirshabeelle uu sheegay in wada hadal kale oo wasiirku ay la yeeshaan isla markaana laga hadlayo imtixaanka uu dhiman yahay isla markaana marka wada hadalladaas ay soo dhamaadaan ay shaacin doonaan go'aankooda ugu dambeeya haddana warar hoose oo aan ka helnay madaxtooyada Hirshabeelle ayaa sheegaya in madaxweynaha uu ogolaaday in ardada lagu celiyo imtixaanka iyadoo 6 maade ee hore ay u galeen la baabi'iyay guud ahaanba imtixaanka cusub ee ay soo diyaarin doonto wasaaradda waxbarashada isla markaana la qaadayo 27 bisha ay u diyaar garoobaan ardada sidaana lagu qanciyo balse madaxweynaha Hirshabeelle oo ka duulaya hadallo ardada ay ka jeediyeen kulankii ugu dambeeyay ee wasiirku la yeeshay qaar ka mid ah ardada iyo bahda waxbarashada kaas oo ahaa in 27 oo wasiirku ku dhawaaqay in imtixaanka dib loo galayo ay ku soo aadayso 10 dambe ee Ramadaan oo ah waqtigii la dukan lahaa salaada taajudka in arinta isagoo ka duulaya madaxweynaha uu ka dalbaday wasaaradda waxbarashada in waqtiga laga bedelo isla markaana loo wareejiyo ciida kadib wasiirka waxbarashada Cabdullaahi Goodax Barre ayaan wali aqbalin arinta sida wararku ay sheegayaan waxaana wali uu ku adkeysanaya in waqtigii wasaaraddu shaacisay in imtixaanka dib loo galayo uu yahay waqtiga ugu habboon wixii warar ay ka soo kordha daawadayaal wararkeena iyo barnaamijyadeena dambe ayaa ku daawan doontaan kala soco YouTube-kan.